musharaxiintii madaxweynaha ee doorashadii tan ka horeysay sidoo kale waxa howlka ku sugan aan u jeedaa musharaxiinta intooda badan howlka ay ku sugan yihiin ururada bulshada rayidka ay ku sugan yihiin yaa kale aragtay oo dabcan musharaxiinta kamid ah howlka jooga maanta Cabdullaah maasan tahay inta badan ku dhawaad 20 musharax ayaa hadda howlka fadhida ujeedada safka hore loogu talagalay musharaxiinta laga soo bilaabay la koonaha kale runtii aad ay u soo buuxu dhaafiyeen musharaxiintu maadaama 39 musharax isdiiwaan gelisay laakiin qaarkood ay tanaasuleen marka waxa muujinaysaa sida musharaxiintu ay u badan yihiin doorashadu inay adkaan karto oo wareegga ka dambeeya la gaari karo maadaama xildhibaanada iyo labada gole ee codeynaya iyo musharaxiintu aad u tiro badan laga yaabo in doorashadu wareegyo kale ay qaadato suurtagalna ay tahay in waqtigu aad u dheeraado maadaama doorashooyinka inta badan marka ay sidan oo kale u tirabataan musharaxiintu ay noqdaan kuwa wareegga labaad la aada marka laakiin waxa sida gaarka loo sugayo Cabdullaahi sida gaarka isha loogu hayo waxa ay tahay oo la sugi doona madaxdii hore ee dalka soo martay oo iyagu kamid ah tartamayaasha dalka saddexdii madaxne hadda u dambeysay xilalka iska kala bedelay ayaa tartamaya oo qaarkood waxa ku jira ra'iisul wasaaraha kuwa kala aqoon-yahano iyo dad siyaasadda wax badan ku soo jiray ayaa runtii ku jira doorashadan sida ogtaa Cabdullaahi dib u dhacyo badan ku yimid marka laga hadlayo qabsoomideeda iyadoo oo dhowr jeer ay dib u dhacyo ku yimaadeen oo sanad iyo bar ay jiitamaysay marka waxa aad loo soo dhaweynayaa arintan farxadda leh ee maanta in Soomaaliya lagu qabanayo doorashadan marka laga hadlayna runtii waa doorashadii saddexaad oo dalka lagu qabanayo Cabdullaahi oo runtii u yeelaysa waji kale cusub iyo marxalado kala duwan iyo sida dalku u soo kabanayo iyo hanaanka dimuqraadiyadeed ee qori isku dhiibka ah ee dalku hadda ka hirgalayo hadda oo iyadoo la taagan yahay 2022ka doorashadan waxay qaadatay waqti badan oo la geliyay juhdi badan habraacyo badan loo dajiyay runtii maanta halka in la soo gaarana waxa aad runtii uga shaqeeyay madaxda oo iyagu iyo gudiyada doorashooyinka oo halkan soo gaarsiiyay ugu dambeynna maanta la dooran doono Cabdullaahi waxyaabaha kale ee sida gaarka runtii loo saadaalinayo waxa kamid ah in doorashadan ay ku tartamayaan rag miisaan culus ku leh siyaasadda Soomaaliya marka laga hadlayo dhowr iyo 20 sano soo laafayna runtii ku dhex jira siyaasadda Soomaaliya qaarkood soo hogaamiyay madaxweynaha kuwa kale ra'iisul wasaaraha ay yihiin kuwa kale wasiiro iyo xilal kaleba ay soo qabteen marka tani waxay ku tusinaysaa Cabdullaahi sida shacbigu ay u daneynayaan in dalku uu ka gudbo marxaladan adag ee isgoyska ah ee runtii caqabado badan ay hor istaageen lana rajeynayo in dalku madaxweyne u yeesho kadibna madaxweynaha uu soo magacaabo ra'iisul wasaaruhuna uu soo dhiso golo wasiir sida daraadeedna dalku uu u galo marxalad caadi ah oo hay'adihiisa dawladdu ay u dhameystiran yihiin oo aysan ku jirin runtii gaab badan laakiin Cabdullaahi marka la eegayo sida xildhibaanada iyo senatarada u yimaadeen runtii iyagu naftirkoodaba wuxuu qaato waqti badan doorashadooda oo dawlad goboleedyada qaarkood soo xulitaankooda iyo gudiyada intaba laakiin hadda guul ayaa lagu tilmaami karaa maadaama maanta la taagan yahay jadwalkii ugu dambeeyay ee la sameeyay uu yahay haday suurtagal loo noqoto Cabdullaahina waxaana la jooga inta badan ka qaybgalayaal badan oo marti sharaf ah oo ururada bulshada rayidka kamid ah oo xildhibaano iyo senataro isugu jira kuwaas oo iyaguna aan weydiin doona aragtidooda waxaana shacbiga Soomaaliyeed ay sugayaan runtii isbedelkan dalka uu galayo ee ah in marxaladan laga gudbo oo madaxweynaha dalka hogaamin lahaa 4 sano ee maanta halkan lagu doorto Cabdullaahi aad oo maasanta Ayuub waan kugu soo laaban doonaa dabcan intuu socdo timinta tooska ay telefishinka u sameeyo dabcan daawadayaal sida hore idin kugu sheegayba howlka waxa ku sugan ururada bulshada rayidka sidoo kale waxa qayb ka ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo iyagu qaarkood lagu casuumay inay kamid noqdaan ama goobjoog u noqdaan sida u dhacayso maanta doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya doorashadiisa maanta halkan lagu qaban yahay midkan waxaan siinaya mid kamid ah dhalinyarada oo lagu magacaabo Aynab ayaan ku hormarayaa oo bal dareenkiisa iyo sidaan u ogaano bal Aynab soo dhaw marka hore waxaad kamid tahay dhalinyarada dareen ahaan ka waran maanta maxay kugu la mid tahay maanta ummadda Soomaaliyeed oo dhan horta waxay u tahay maalin aad u weyn maalin aad muhiim u ah waa maalin muddo 5 sanadood la soo dhaafay oo dhan aynu sugaynay doorashadan waqtigeedu waa dheeraaday hadda muddo sanad iyo xoogaa baa ku darsantay taas waxay ku tusinaysaa rabitaanka iyo rajada shacabku ay sugayaan ee ay aad u daneynayaan iyo ididiilada ay ka qabaan ay ka muujinayaan maanta waxaad ogtahay 12 saacadood ee la soo dhaafay xataa isku socodka gebi ahaanba magaalada Muqdisho inuu xidhnaa oo aan dadku meelnaba aadin waxay ka rajo qabaan ay yihiin kunka qof ee halkan iskugu yimi rajadii shacabka oo dhan baa halkan maanta aniga adigu aynu ku sugannahay taala guul fiicanna waa ka rajaynaynaa inay ka soo baxdo isbedelna waanu ololeynaynaa waanaanu rabnaa in dalka halkan maanta aanu joogno isbedel ka baxo ilaahay waxaanu uga baryaynaa dalka inuu gacanta u geliyo
qof mansabka iyo ahlkiidiiba leh taladana gacanta ku hayn karaaya waa tahay dabcan marka laga soo tago taasi dabcan daawadayaal waxaa iminka loo yeerayaa kooxda brotocolka ayaa waxay samaynaysaa in xildhibaanada iyo sidoo kale marti sharafta ay u hagaajiso in kuraastooda ay fariistaan dabcan goordhow waxaa bilaabanaysaa munaasabadda doorashada Ceynab wax yar ii dulqaado dabcan waxaa marka dabcan la filayaa in doorashadu mar dhow ay bilaabato marka haddaan Ceynab dib ugu laabto dabcan maanta waxay ku beegan tahay 15 May doorashada ay dhacaysa marka laga soo tago doorashada ay dhacayso madaxweynahana waa maalintii dhalinyarada Soomaaliyeed oo 15 May ah markii la aasaasay 1943 ururka Israel munaasabadan inay ku soo aado maanta oo ah maalintii dhalinyarada dhalinyarada Soomaaliyeed marka maxay uga dhiganayaan laba qarannimo ayaa maanta dhalinyarada Soomaaliyeed isku dul saaran qarannimadii iyo gleelida Soomaaliya oo maanta xuskeedii aynu taagannahay iyo qarannimada dimuqraadiyadda iyo dib u dhiska iyo nooleynta dawladnimada dalkan iyo dadkan oo iyadana maanta aynu rabno inaynu u aastayno weji cusub iyo jaha cusub waxaan ilaahay ka baryayaa in si nabada ay noogu dhammaato sida rajada shacabka oo dhamme ay qabaan oo ah inay helaan isbeddel mid wixii hadda taagnaa cawad dhaama ah inay helaan waana farxad labaad oo muhiim ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo dhalinyarada waxbaratay ee magaalada ku noolba waxay uga dhigan tahay rajo cusub oo gashay in dalku uu yeesho jaha cusub oo doorasho ah oo ay maanta indhaha ku wada hayaan iyadoo ay tahay maalintii xuska dalkan ee dadku ay u hureen dhiigga iyo damaca si taa la mid ah inta halkan joogta iyo xildhibaanada golaha shacabkuba waxaan rajaynayaa inay maanta iyaguna sumad labaad oo astaan labaad oo xuska dhalinyarada ah ay muujin doonaan maadaama boqolkiiba dhowr iyo 60 wax ka badan qiyaas ahaan ay yihiin dhalinyaro waa tahay dabcan saddex doorasho ugu dambeysay oo tan marka lagu daro saddex ay noqonayso dalka lagu qabanayay imise doorasho oo madaxweynaha ayaa nasiib u yeelatay inaad goobjoog u noqoto maanta tan ay ugu horeysay inaan goobjoog noqdo intii hore oo dhan waxaan kala socday baraha bulshada iyo TV-yada laakiin tan maanta waxaan u ahay goobjoog guddiga doorashooyinku hab qaban qaabo fiican bay ku wadaan waxyaabaha ay ka mamnuuceen goobta waa ay wada suurtagaleen waxyaabaha shacabku aad isku weydiinayeen waxay ahayd suurtagal ma noqon doontaa dadku inay taleefanada meesha la galaan ma aysan dhicin oo cid ilaa hadda taleefan sidataa ma jirto dadku muuqaal bay isku wada raadinayaan sitaa la mida iyadana waxaa suurtagalay oo hirgalay in dhammaan gebi ahaanba aan hoolka iyo teendhada agagaarkeeda wax lacaga dadku aanay la soo gelin waana rajo aad u qurux badan waa kaga mahadcelinaa weli daawadayaal waxaad nagala socotaan telefishinka qaranka Soomaaliya marti kala duwan ayaa joogto sidoo kale waxaa kamid ah laamaha amniga oo ayaguna kaalin muhiim ah ka qaadanaya qabsoomidda doorashadan markan waxaa garabkayga midig soo istaagay taliyaha hoggaanka ilaalinta canshuuraha Jarnaal Cabdullaahi Xasan Bariise soo dhaw taliye bal ka waran maanta hoolka doorashada ayaa ku sugannahay xaalad soo socota bismillaahir rahmaanir rahiim أولاً إلهي أود لها ما هاد وسقنتهاي ما أنت وعن جوجنا هولكي دور الشذا مدعوينا جمهورية الفدرالية الصومالية إلهي وعن كبرينا إنه نوفض ضيو وحاكرون ربائنا هل كان وقفا إيديستو ومد الصوماليات قارهان غير مقدشو وهدم هاي أبن أويس jidadka qaar u xiran yihiin in la dul qaato muxuu ahay lagu dadaalo in booliiska lala shaqeeyo waxaan muxuu ahay meeshaan u joogno waxa waaye danta guud ee ummadda Soomaaliyeed amniga in la wada sugaahune cid kasta ayay muxuu ahay mas'uuliyaddu saaran tahay booliisku waa adeegayaashiinni waxay habeen u taagan yihiin waxa waaye adinka ay muxuu ahay idin qidmaynayaan sidaa daraaddeed in lala shaqeeyo la adkaysto inta yartahay hawshu socoto insha Allahu tacaala waa wax yaroo muxuu ahay saacada ku dhammaan doona dulqaad hal la muujiyo waxaan ilaahay ka baryaynaa in ilaahay muxuu ahay si fudud noogu dhammeeyo iyo si aan la heli karin insha Allahu tacaala tahay taliye waxaad ka mid tahay dabcan mas'uuliyiinta amniga inta badan 20kii sano la soo dhaafay ku dhex jiray howlahan
waxaana nasiib u yeelatay 20kii sano la soo dhaafinaa siyaasadda iyo wixii xaaladda meesha maraysa la socotid isbedelo ma dareemaysaa doorashada saddexaad oo muqdisho lagu qabanayo tan noqonaysa oo madaxweyne lagu dooranayo ma dareemaysaa wax isbedel ah oo ama horumarineed oo ay samaynayso Soomaaliya aad u weyn muxuu ahaa marba waxbaan soo marnay waxaa sharaf noo ah maanta inaan dalkeenna hooyo khaasatan magaalo madaxda xamar doorasho ay muxuu ahay nooga dhacayso oo aanan muxuu ahay meel kale aan la tegayn waxay ka soo bilaabatay xilligii sheekh shariif iyo madaxweyne sheekh shariif iyo madaxweyne xasan sheekh ay isbedeleen waxaa ku xigay doorashadii kale oo halkan ka dhacday oo labada madaxweyne isku bedeleen haddana sidii oo kale waa tallaab hore loo qaaday waxaana ilaahay ka baryaynaa waddankeenna dhibaatada jirta inuu ka saaro laakiin waxay ku xihan tahay shaqada aan wada qabsanno in leysku xirmo in gacmaha leesqabsado in lagu dadaalo inaan waddammada hadda muxuu ahay waa naga hormareen aan leennahay waa hubaa aniga Soomaaliya inay ku gaari karto muxuu ahay sanado yar ilaahay idankii waana lagu gaaraa ummadda Soomaaliyeed inay iscafiso inay alla barido abaaraha in alla ka saaro in muxuu ahay wax walba amni darrada alla ka saaro intaas inaan si niyada oo uura ku wada ducaysano insha Allahu ta'ala aad u maasantahay taliye waan kaaga mahadcelinaa waqtigaaga qaaliga waxaan rajaynaynaa guulan ku rajaynaynaa wali daawadayaal waxaan ku sugannahay hoolka doorashada markana waxaa ila jooga mid kamid ah marti sharafta lagu casuumay inay ka qayb galaan doorashada mudana soo dhawo marka hore magacaaga inoogu bilaw bal dareenkaaga bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Cabdifataax Nuur Cali dareenkayga aad iyo aad bulshada Soomaaliyeed maanta dareenkooda la mid yahay maanta waxaan rajaynaynaa in ummadda Soomaaliyeed ay ka bixi doonto dhibaatadii muddo ay ku soo jirtay xildhibaanada sharafta leh iyo meeshan sida loo soo agaasimayna maanta dadku waxay sugayaan isbedel wax ku oola inuu dalkan ka dhaco oo dhibaatadii lagu jiro muddadii 5 sano la soo dhaafay laga baxo waxaan u mahadcelinaynaa cid walba oo gacan ka geysatay qabsoomidda xukuumadda Maxamed Xuseen Rooble ugu horeyso iyo guddoonka baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur iyo guddiga doorashooyinka maanta xildhibaanada waxaa dareemaynaa iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel walba adduunyada ka joogtay daawanayso waxay dareemayaan in maanta muwaadinkii Soomaaliyeed ay ka bixi lahay dhibaatada lagu jiray muddooyinkii la soo dhaafay amni darrada iyo cadaalad darrada iyo dhibaatada taagneed in maaragta laga bixi doono maanta oo isbedel wax ku oola oo ka dhici doono dalka khayr badan aan u rajaynaynaa dalka iyo dadka Soomaaliyeed in Ilaahay maanta uu ka dhigo maalin ay ku badbaadaan oo geesi oo u soo saaro dhammaan mudanayaasha tartamayana waxaan u rajaynaynaa kan ugu wanaagsan in Ilaahay u dooro aad u maasantahay dabcan doorashadan marka waxaa la filayaa madaxweyne inuu ka soo baxo madaxweynaha soo baxa dabcan xukuumad cusub oo soo dhisan doona maxaad filasho ah ama tulooyin oo sii leh dadku waxay u baahan yihiin maanta ammaan u baahan yihiin iyo cadaalad waxaa og tahay magaaladan 5 sano ka hor doorashada waxay ka dhacaysay iskool bulisiyo maantana waxay ka dhacaysaa teendho xataa la soo baarayo musharaxiinta xawaay cadowgii maanta dekadii iyo magaaladii cashuur ka qaadaya wuxuu u baahan yahay madaxweyne la dagaalamo cadowga ummadda Soomaaliyeed magaaladana xoreeyo cadaaladna ugu shaqeeyo dadka oo xawaay u cadaalad falo si nabadgelyo iyo ammaan aan u helno marka xildhibaanada sharafta leh na daawanayo waxaan ka codsanaynaa inay noo dooraan madaxweyne caadil ah oo ammaano leh waa maasantahay dabcan dhalinyaro kale badan ayaan fursadda siin doonaa markana mid ka mid ah dhalinyarada ayaan rabaa inaan fursadda siiyo marka hore adigoo magacaaga inoogu bilaabaya bal waxaad inaga warantaa ka dhalinyaro ahaan maxay kaaga dhigan tahay maanta inaad hoolkan ku sugantahay isla markaana aad goobjoog ka tahay doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi waxdah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah magacaygu waa Mubaarak Maxamed Axmed runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ka qayb ahay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada ka qayb galaysa madashan maaragtay taariikhiga ah ama kulankan taariikhiga ah ee ay baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku dooranayaan madaxweynihii qaranka runtii dadka Soomaaliyeed ay in badan ka dhursugayaan sidii uu maaragtay dalkani uga dhaqaaqi lahaa meesha uu taagan yahay oo uu maaragtay u heli lahaa dawlad haysata sharciyadeedii dhammaystirneyd oo ka shaqaysa baahiyaha qaranka iyo dadka Soomaaliyeed ay qabaan runtii in badan baa laga dhursugaya inay doorashadan qabsoonto waxay doorashadii ugu dheereyd
doorashooyinkii dalka soo maray mid ka mid ah doorashooyinkii ugu dheeraa bay ka mid ahayd waxaa la soo maray checkpointiyo iyo istaba badan